Assalaamu calaykum. Waa muuqaal cusub oo aan idinkula wadaagi doono astaamaha ay leeyihiin dadka hanka iyo hadafka leh. Marka uu qofku shay ku sifaysan yahay ama uu rabo, waa in uu astaanteedii lahaadaa. Tusaale, qofka muslimka ah waa in uu noloshiisa ka muuqdo islaamku oo ay dareemaan dadka la dhaqmaya in uu qofkani yahay qof dhaqan gelinaya waxa quruxda badan ee ay bartay diintiisa islaamka ah. Sidaas oo kale, qofka hanka iyo hadafka lihi waa qof aan la mid ahayn dadka kale ee aan iyagu wax ujeedo iyo himilo ah ka lahayn noloshan. Inta aynaan tirin astaamaha iyo sumadda ay leeyihiin dadka hanka lihi, waxa muhiim ah in aad ogaato in ay cilmi baadhis la sameeyey tilmaantay in dadka adduunka ku nool 95% ay noloshoodu tahay caadi. Nolol aan lahayn wax hadaf ah oo la sheego, nolol aan waxba kaga duwanayn ta hebel ama heblaayo, nolol aan dhaafsiisnayn helidda daruuriga iyo waxyaabaha danta ah ee lagu noolaado, halka ay 5% keliya ka yihiin kuwa taariikh ka taga oo leh hangaarsiiya hanashada kuwa dhaqan iyo kuwa dhalan doonaba. Haddaba, waxaa ka mid ah astaamaha lagu garto qofka hadafka leh. 1. Waa qof la joogidiisu ay tahay mid aan diiqad iyo cidhiidhi lahayn. Waayo, gudaha hoose ee jirkiisa ama maskaxda ayaa waxa uu ka dareemayaa farxad, sababta oo ah waxa uu rumaysan yahay in uu marun gaari doono waxa uu rabo, ha dhawaato ama ha dheeraate. 2. Xidhiidhka uu la leeyahay dadka kale waa mid aad u fiican. Loolan iyo tartan xunna kulama galo dadka kale waxa ay dejisteen. Waayo, waxa uu aaminsan yahay in ay guushu tahay waxa Alle u qoray iyo dadaalkiisa, ee aanay ahayn in loo banneeyo gegida uu rabo in uu gaadho. Haddii ay dadka kale dadaalaan oo qorshayaal fiican samaystaanna, in aanay isaga wax dhib ah ku haynin dheef mooyaan. 3. Waa qof aan xilligiisa ku lumin wax aan waxtar u lahayn. Waayo, waa qof ujeedo leh, markastana waxa uu ka fakarayaa sidii uu ujeedadiisa u gaadhi lahaa ama ugu dhowaan lahaa. Haddii ay dhacdo in uu xilligiisa ku bixiyo meelo ama cid aan waxtar u lahayn, waxa uu ku guul daraysanayaa gaadhidda hankii uu lahaa iyo halkii uu rabay, ama waa uu gaadhayaa waase uu ka habsaamaya. 4. Waa qof aad uga faa'iidaysta waxa uu awoodda u leeyahay ee uu ku fiican yahay. Meelaha uu ku hooseeyo ee lagaga wacan yahayna waxa uu ka dhammaystirtaa dadka kale ee iyagu ku fiican. Waayo, haddii uu halkii taagnaado oo keliya uu ku dadaalo dhisidda iyo ka faa'iidaysiga halka uu ku wacan yahay, waxaa dhici karta in muddo kadib ay waxba tari waayaan waxa uu ku fiican yahay, oo ay wax taraan waxyaabihii isaga ku adkaa ee ka maqna. Haddii uu iska dhisi lahaana, uu maanta noqon lahaa mid ay u hirgashay ka faa'iidaysigoodu. 5. Waa qof si joogto ah wax u barta, oo aan ku joogsan halka uu aqoonta ka taagan yahay. Waxaa runtii aan qodobkan gudihiisa baraarujinayaa aniga oo ku rajo weyn in aan muuqaal gaar ah ka soo sameeyo in hablaheennu marka ay guri yeeshaan ay u qaataan in ay halkaa ku joogsatay aqoontii iyo wax ka beddelidda dadkii ay wax u barteen. Sidaana ma aha ee iyada oo gurigeeda iyo geesiyaasha carruurta ah ee ay dhashay la joogta ayaa ay noqon kartaa halyeeyad aqooneed iyo hooyo ummadeed oo bulshadeeda wax u tartay, dhaxal qoranna uga tagtay kuwa dhalan doona. 6. Waa qof naftiisa xakameeya oo si xikmad leh wax u bixiya, si xikmad leh u hadla, si xikmad leh u dhaqma. Marka ay wax bixin noqotona, diinteenna islaamka ah ee quruxda iyo qaayaha badan ayaa waxa ay ina farasaa in aynaan waxa aynu haynaba wada bixin, sidoo kalena aynaan noqon kuwa aan waxba bixin oo ay gacmahoodu laaban yihiin. Waxaana ay ina farasaa in aynu si dhexdhexaad ah wax u bixinno. 7.
waa dad haddii ay dhibaato la kulanto isku daya in ay si fudud oo dhib yar u xaliyaan. waayo markii ay go'aansadeen in ay noqdaan dad han iyo himilo leh ayaa ay ku talagaleen in ay dhabarka u ritaan dhibaatada ka hor imanaysa. qofka iimaanka leh ee alla rumaysanina waa mid dhibaatooyinka adduunka u arka imtixaan isaga lagu tijaabinayo, waana uu ka shaqeeyaa imtixaanka oo waa uu samraa. inta aynu ku kulmayna muuqaal kale oo xiiso leh, waa Haruuni oo idinkaga tegaya. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.